Dad badan waxay qisada Qaaruun u arkaan sheeko nin maalqabeen ahaa oo dhulka lala gooyay. Waxay eegaan dahabkiisa, qasnadihiisa iyo hantidii uu lahaa. Laakiin Qur'aanku wuxuu doonayaa wax ka weyn taas. Qaaruun wuxuu ka tirsanaa qoomkii Nabi Muuse calayhi salaam. Wuxuu ku koray deegaan yaqaan xaqa. Wuxuu maqli jiray waanada. Wuxuu garanayay xalaasha iyo xaaraan. Sida dad badan oo maanta ku bilaaba nolol wanaagsan, qoys wanaagsan iyo qalbi nadiif ah. Laakiin markay adduunku u furanto, ganacsigu bato, lacagtu kororto, xiriiradu bataan, wax walba way isbedelaan. Qur'aanku wuxuu yiri: wa aataynaahu min alkunuuzi maa ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbah ulil quwwa. Waxaa la siiyey khasnado ay xitaa furayaashoodu culays ku hayaan rag xoogag badan leh. Ma uusan sheegin Qur'aanka inta guri uu lahaa ama inta lacag bankiga ugu jirta. Wuxuu sheegay culayska furayaasha. Sababtoo ah mararka qaar furayaashu waxay astaan u yihiin awood, in albaabo badan kuu furmaan, hal eray oo ka yimaada, in go'aankaagu saameeyo nolosha dadka. Laakiin weli waxaa jiray dad xaqa ku taagan. Waxay ku yiraahdeen: laa tafrah, ina allaha laa yuxibu alfarixiin. Ha kibrin, ha isweynaysiin. Ilaahay ma jecel kuwa isweynaysiiya. Kadib waxay siiyeen daawadii ugu weyneed: wabtaghi fiima aataaka allahu daara alaakhira. Hantida Ilaahay ku siiyey ku raadi wadada saxda aakhiro. Lacagtaada, aqligaaga, magacaaga iyo awooddaada ka dhig wax dadka anfaca. walaa tansa nasiibaka min addunya. Hana iloobin adduunkaaga qaybta aad ku leedahay. Ka cun, ka labiso, noloshaada ka qaado. Qur'aanku ma diidin inaad maal yeelato, laakiin wuxuu diiday in adduunku noqdo hadafka ugu dambeeya aad leedahay. Kadib Qaaruun wuxuu yiri eray aad halis u ah: innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii. Waxaan ku helay aqoonteyda. Anigaa sameeyey, anigaa kasbaday, anigaa ka fiican dadka kale. Markuu ereygaas qalbigaaga galo, qofku wuxuu isu bedelaa. Wuxuu bilaabaa inuu dadka yaraysto. Wuxuu iloobaa Allah subxaanahu wa tacaala. Wuxuu u arkaa naftiisa sababta guushiisa. Kadib wuxuu u soo baxay dadkii isagoo isu muujiyay quruxdiisa. Maanta taas waxay noqon kartaa baabuurta, nolosha quruxda badan iyo muuqaalada social media aan ka arkay oo dadka ay soo bandhigayaan. Markaas dad ayaa laba noqday. Qaar waxay yiraahdeen: haddii aan heli lahayn waxa la siiyey Qaaruun. Sida maanta dad badan ugu hinaasaan waxa ay internetka ku arkaan, ee social media ku arkaan. Laakiin kuwii cilmiga lahaa waxay yiraahdeen: abaalka Allah ayaa ka khayr badan adduunka. Waxa Ilaahay aakhiro iyo nicmo ku diyaariyay ayaa ka wanaagsan adduunka. Kuwaas Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu yeeray kuwii cilmiga la siiyey. Sababtoo ah cilmiga dhabta ah waa mid qalbiga toosiya, ma ahan mid kibir dhaliya. Kadib Qaaruun iyo hantidiisa, guryaashiisii, dhulka ayaa lala gooyay. Dadkii shalay ku haminayay noloshiisa maanta waxay yiraahdeen: haddii Allah na badbaadin lahayn, annagana dhulkana la gooyi lahaa. Hadda isweydii, Qaaruun maanta ma jiraa? Haa, wuu jiraa. Waxaa laga yaabaa inuu social media joogo. Waxaa laga yaabaa inuu ganacsiga dhex joogo, ama waxaa laga yaabaa xitaa qalbiyadeena inuu ku jiro. Su'aasha ugu weyn waa, adigu kooxdee ka tirsanta? Ma kuwa ku haminaya inay sida Qaaruun oo kale noqdaan, mise waxaad ka mid tahay kuwa ku haminaya oo ula talinaya inuu aakhiro ku dadaalo, adduunkiisana uusan hilmaamin?